muqdisho nabad ma ahan anaa tagay nabad ma jirto federaalkaana kaaba ka dawlad sarreynaba magaalada Garowe caasimadda maamulka Puntland maanta waxaa lagu qabtay 20 sanad guuradii ka soo wareegatay markii la aasaasay maamulka Puntland waxaan kula wadaagi doonaa mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Puntland oo ka hadlay khilaafka kala dhexeeya dawladda federaalka Soomaaliya halkaas waxaa ku sugnaa madaxweynaha dawlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo maalmo ka hor markaas sheegay in Puntland ay awood ciidan ay ku soo bandhigi doonto magaalada Garowe qaar ka mid ah mas'uuliyiinta maanta ka qayb gashay munaasabadii 20 sanad guuradii ka soo wareegatay maamulka Puntland waxay ka dhawaajiyeen in markaas hubkan iyo gaadiidkan uu yahay mid lagu difaaci doono maamulka Puntland iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka socota maamulka Somaliland oo ka qayb galay xalfadda maanta ka dhacday magaalada Garowe ayaan muuqaalkan kugu la wadaagi doonaa dhinaca kale magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug waxa ka soconaya dhaqdhaqaaqyo xooggan oo wadada dawladda federaalka Soomaaliya halkaas waxa la geeyay ciidamo fara badan oo ka tirsan dawladda federaalka xoogay ugu dambeeyay ayaan muuqaalkan ku soo koobi doonaa soo dhawaada saaxiibayaal waa maalinimo Sabti ah taariikhdu ku aasantay 1 August sanadda 2026 magaalada Garowe caasimadda maamulka waa markaasi gobolka Nugaal ahna xarunta maamulka Puntland ee Garowe waxa loo qabtay 20 sanad guuradii ka soo wareegatay maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani xukuumaddiisu waxay soo bandhigtay gaadiid dagaal oo markaasi aan laga filaynin hubkan iyo sidoo kale ciidamadan aad aragtaanba waa ciidamo ay markaasi ku soo bandhigeen maanta magaalada Garowe caasimadda gobolka Nugaal ee maamulka Puntland Soomaaliya tan iyo markii xiisada dawladda federaalka Soomaaliya maamulka Puntland ay soo shaabaxday waxa la arkayay khilaafka kala dhexeeya dawladda federaalka Soomaaliya maamulka Puntland oo soo shaabacaya iyadoo madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uu caawa ka hadli doono xalfadan ayaa haddana waxa la arkayay mas'uuliyiin hore u ah kulanka Saciid Cabdullaahi Dani oo kaga hadli doono xaaladda guud ee maamulka Puntland waxay ka dhawaajiyeen in khilaafka kala dhexeeya dawladda federaalka Soomaaliya waxay tilmaameen nabadda Puntland ka jirto inaysan xamar ka jirin waxay sidoo kale qaadaceen kulankii golaha shacabka ee maanta ka dhacay baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxay tilmaameen in nabadan iyo sidoo kale naashaadkan aad arkaysaan maamulka Puntland oo ka jiro oo ka jirin qaybo ka mid ah dalka gaar ahaan caasimadda Soomaaliya Muqdisho qaar ka mid ah xildhibaanada oo shaqeeyay waxay tilmaameen in markaasi ammaankan dalka uu ka shaqeeyay madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani waxay eedayn u jeediyeen dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha waqtigiisu soo dhamaaday waxay ku eedeeyeen in markaas uu carqaladeynayo ammaankan ka jira magaalooyinka Puntland waxayna sheegeen in markaas xilligan wixii ka dambeeyay Puntland ay qacmaha isqabsatay dhinaca kale mas'uuliyiin ka socota maamulka Somaliland ayaa ku sugnaa magaalada Garowe caasimadda Nugaal ee markaas maamulka Puntland Soomaaliya fanaaniin iyo sidoo kale wasiirro uu soo diray madaxweynaha maamulka Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro ayaana ku sugnaa waxay ka dhawaajiyeen in labada maamul ama labada dawlad goboleed oo ka dhaxeeyo xiriir aad u wanaagsan waxayna sheegeen in xilligii duulaanka lagu qaaday maamulka Somaliland ay ka gooysay maamulka Waqooyi Bari ay garab ka heleen maamulka Puntland waxay sidoo kale ku hanjabeen in Waqooyi Bari ay si awood kaga saari doonaan iyagoo kaashanaya maamulka Puntland Somaliland iyo markaasi Puntland ayaa muddooyinka u dambeeyay waxa ka dhaxeeyay xiriir ay markaasi ay meesha kaga saarayaan maamulka Waqooyi Bari Soomaaliya waxayna tilmaameen xilligan wixii ka dambeeyo maamul Waqooyi Bari la yiraahdo in aqoonsaneen laascaanood hubka lagu hayeen ay si awood kula wareegi doonaan iyagoo markaas iska kaashanaya maamulka Puntland oo hogaamiyo Saciid Cabdullaahi Dani iyo sidoo kale maamulka Somaliland dhinaca kale xildhibaanadu waxay tilmaameen ama wasiirada ka tirsan maamulka Puntland in khilaafkan dawladda federaalka Soomaaliya oo ku soo aadaya iyadoo maamulka Puntland oo qacmaha isqabsada waxayna sheegeen in hubkan iyo markaasi gaadiidkan maanta lagu arkay magaalada Garowe kaliya uu yahay midkii loogu talagalay in lagu soo bandhigo meesha balse hubkii ugu badnaa oo ku sugan yahay buuraha markaasi ay Puntland ay kala dagaalamayso kooxda al-shabaab waxay sheegeen in magaalada Boosaaso magaalada Gaalkacyo magaalooyin kale oo Puntland ka tirsan markaasi ay hubkan ay ku sugan yihiin iyo kuwa ka fara badan ciidamada maamulka Puntland ay gacanta ku hayaan sidoo kale waxay tilmaameen in hubkaasi loogu talagalay in lagu ilaaliyo ammaanka magaalooyinka Gaalkacyo iyo sidoo kale magaalooyinka Boosaaso iyo sidoo kale magaalada Garowe caasimadda maamulka Puntland waxay xildhibaanadu tilmaameen in markaasi hubkaasi kaliya uu yahay hub gaar ah oo markaasi lagu ilaalin doono ammaanka magaalooyinka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani isagu madasha ayuu ku sugnaa indhaha ayuuna ka daawanayay dabaaldegan markaasi ka dhacay magaalada Garowe ee caasimadda maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani maalmo ka hor warbaahinta ayuu la hadlay waxa uu sheegay in markaasi madaxdii hore ee dalka uu la jeedo madaxda dawladda federaalka Soomaaliya ka shaqeynayeen sidii loo kala geyn lahaa
waa markaasi maamulada Puntland iyo sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya waxa uu sheegay in markaasi maamulada dariska la ah ee dowladda federaalka Soomaaliya ay ciidamo fara badan geynayso oo adeegsanayso xaalka siyaasadeed ee markaasi dalka ka jira waxa uu Puntland oo markaasi ama madaxweynaha maamulka Puntland uu ku eedeeyay maamulka Galmudug inay ka shaqeynayaan sidii markaasi Galmudug ay markaasi uga hor imaan lahayd maamulka ay walaalaha yihiin ee maamulka Puntland Soomaaliya dhinaca kale magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug waxa ka soconaya dhaqdhaqaaqyo kala duwan ee dowladda federaalka Soomaaliya wado iyadoo la arkayo hubkan fara badan oo lagu soo bandhigay maanta magaalada Garowe ee caasimadda Nugaal ee maamulka Puntland Soomaaliya in markaasi la ogyahay hub intaan ka fara badan ama markaasi gaadiid dagaal sidoo kale ciidamo fara badan oo Saciid Cabdullaahi Deni uu ku hayo magaalada Boosaaso Aanraade iyo sidoo kale magaalada Gaalkacyo duleedkeeda halkaasi waxa ku sugan ciidamadii BSF ee ka goostay maamulka Puntland iyadoo markaasi la tilmaamayay in Saciid Cabdullaahi Deni oo markaasi hubkan aan laga filayn ayaa sidoo kale hore waxa loo ogaa in ciidamada BSF ay hore uga goosteen waxaana xilligan ay ku soo aadaysaa iyadoo Puntland ay gaadiid dagaal ay soo bandhigtay maanta 20 sanad guuradii ka soo wareegatay markii dibadda loo taagay ama la aasaasay maamulka Puntland Soomaaliya qaar ka mid ah xildhibaanadu oo careysan ayaana maanta warbaahinta la hadlay waxay tilmaameen in xilligan wixii ka dambeeyay Puntland gacmaha is qabsatay isla markaana ay ka shaqeyn doonto ammaanka magaalooyinka Puntland magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug oo markaasi ka wada tirsan ama magaaladaas waxay ka wada tirsan tahay maamulka Galmudug oo doorasho qof iyo cod dowladda ay ka qabatay halka maamulka Puntland oo qaybta kale ay maamusho iyaduna khilaaf xooggan uu kala dhaxeeyo dowladda federaalka Soomaaliya halkaas waxay geysay ciidamo fara badan oo markaasi halkaas la tagay wasiirka gaashaandhigga Axmed Macalin Fiqi oo isagu markaasi halkaas ka qayb galay doorasho qof iyo cod oo dowladdu 30 bisha inuu ka soo gudubnay Julaay ay ka qabatay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug lama oga halka xiisadu ay ku dambeyn doonto balse Puntland ayaa maanta waxay soo bandhigtay hub iyo sanad ciidan oo horaan looga filayn caawa warbaahinta waxa la hadli doona madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni waxa uu ka hadli doonaa khilaafka sidoo kale wuxuu ka hadli doonaa kulankii AYSOM ee markaasi ku soo gabagaboobay magaalada Kampala caasimadda Uganda iyo shirka maanta ka furmay magaalada Muqdisho waa kala fadhiga sideedaad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxa uu markaasi u cadeey doonaa mowqifkooda ku aadan xildhibaanada maamulka Jubbaland maanta ay ka maqlaayeen sidoo kale Puntland kala fadhiga sideedaad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaana maanta markaasi daafuray waxa uu markaasi uu sheegay in maamulada Puntland iyo Jubbaland ay dowladdu ka tashatay doorasho qof iyo cod ay ka qaban doonto maamulka Hirshabelle Soomaaliya markaasi dowlad goboleedka Hirshabelle xiisada ka dhaxaysa dowladda federaalka Soomaaliya maamulka Puntland ayaana markan u muuqata in markaasi cirka isku sii shareerayso haddaba waxyaabaha ka soo kordha iyo khudbadda uu caawiyay Saciid Cabdullaahi Deni halkan ayaan idin kula wadaagi doonaa